bariga dhexe mar walba waxa uu ahaa goob dagaal iyo meel siyaasad kulul ay ka jirto laakiin hadda xiisadii ugu weyneed ayaa cirka isku shareertay Iiraan iyo Israa'iil oo laba dal oo cadow isku ah muddo 10 sano ah ayaa waxa ay maanta u muuqdaan kuwo si toos ah isugu sii dhacaya maxaa socda maxay noqon kartaa natiijada waa maxay sababta caalamka indhaha ay ugu hayaan arinkani si aan u fahanno wax hadda socdo waa in aan dib u milicsana halka ay colaadda ka bilaabantay Israa'iil iyo Iiraan waxa ay isku arkaan halis in ay isku yihiin Iiraan ayaa taageero u fidisay hadda ka hor Xisbullah oo ka dagaalanta Lebanon iyo Hamas oo ka dagaalanta Gaza dhanka kale Israa'iil waxa ay Iiraan ku eedeynaysaa in ay rabto inay hesho nuclear kaasoo khatar ku noqon kara jiritaanka Israa'iil 2024 weerar dhanka cirka ah ayaa lagu qaaday xarumo muhiim ah oo ku yaalay Iiraan warar ayaa sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay weeraradaasi waxa ayna ku beegsatay Israa'iil xarumo sirdoon Iiraan si rasmi ah uma aysan aqoonsan qasaaraha markaas soo gaaray waxa ayna sheegtay in ay ka argoosan doonto Israa'iil dagaalku kuma uusan ekaanin mid hub ah waxa kale oo jiray mid cyber ah Iiraan iyo Israa'iil waxay labadaba iska weerareen dhanka internetka sidoo kalena sirdoonka Mossad oo ay leeyihiin Israa'iil wuxuu si gaar ah ugu lug leeyahay dilalkii cilmi baarayaasha Iiraan waxa ay rabeen in ay burburiyaan mashruucii nuclearka oo ay waday Iiraan haddaba intaas hadaan isla fahanay muxuu yahay arinka hadda taagan muxuu yahay dagaalka socda hadda waxa la filan karaa weerar cusub iska hor imaajo toos ah iyo suurtagalnimada dagaal ballaaran oo ka dhex qarxi kara labadani Iiraan waxa ay sheegtay maalmihii la soo dhaafay in aysan ka laaban doonin cadawgooda koowaad ee la dagaalami doonaan walow la soo weeraray Iiraan iyadoo laga laayay saraakiishii ugu sarsareysay ay lahayd iyo saynisyahanadii u qaabilsanaa in ay u sameeyaan mashruucii nuclearka Mossad oo ah sirdoonka Israa'iil ayaa dhaxgalay Iiraan iyagoo meeshaas weerarka ka qaaday Mossad weerarkooda kama aysan bilaabin dibadda oo waxa ay ka dhax qaadeen Iiraan gudaheeda waxaana aad loo qiyaameeyay militarigii iyo sirdoonadii Iiraan ayaa ayadana jawaab culus ka bixisay gaadmadii lagu sameeyay kadib ayadoo ku tuurtay Israa'iil 100 gantaal kuwaasi oo isugu jira kuwa plastic ah iyo kuwa cruise ah dadkii meesha joogay oo reer Israa'iil ahaa ayagiina meesha ay isaga carreen oo waxa ay galeen godad waxa la sheegay in Netanyahu loola orday dalka Gariiga waxa uu ka carray gantaaladii Iiraan hadda waxa meeshan ka muuqata in Iiraan iyo Israa'iil uu ka dhax qarxay dagaal dunidana ay daawanayso balse su'aashu waxa ay tahay yaa guuleysan doona yaa qastaaraha ugu badan la kulmi doona ogsoonow dagaalkan ma noqon doono mid labadani bis ku eg oo wax uu saameyn doona caalamka oo dhan haddii aad halkan inala soo gaartay waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan ee fadlan isku day in aad nagu soo biirto sahanka dunida waa bartii aad ka ogaan lahayd runta